السلام عليكم ورحمة الله. waxaa noo sii socda cashirkeenii saddex xagal geometry haddii ilahay idmo maanta waxaan kasii shaqey doonaa exercisedii hore aan ka shaqey jirnay maanta afartan exercise ayaan ka shaqey doonaa haddii ilahay idmo waxaan ku bilaabi doonaa macnaha haddii aan soo noqno aragtidii Pythagoras macnaha waxay ahayd aragtida Pythagoras a square plus b square waxay noola mid tahay c square waxaa loo adeegsan karaa aragtidan Pythagoras right angle triangle markay xagashan 90 tahay markasta inaan fahanno muhiim ah saddex xagal kasta ma loo adeegsan karo waxaa loo adeegsadaa oo kaliya right angle triangle marka insha Allah maanta xagash waxaan haysanaa right angle triangle haysanaa waxaa naga maqan a ayaa naga maqan a b na isku mid waa macnaha hadda wax macnaha ma kala sameynaa ka a ka b laakiin waxaa muhiim ah xagasha 90 ka tan ka soo horjeeda waxa waaye hypotenuse waana c haddii la waatan ugu dheer insha Allah saddex xagal right angle triangle ka marka waxaan leenahay maadaama aan a ayaan raadinaynaa macna x ayaan raadinaynaa x oo noola mid ah a marka waxaan leenahay a square waxa ay la mid tahay c square oo laga jaray b square macna b dana wareejinaa maadaama c a aan raadinayno marka calaamadda bedelna maanisay naqanay waxa laalo wixii calaamadan isla egtaa dhankan ka marna calaamaday bedelnaa insha Allah haddii aad idmo marka waxaan leenahay c square waxay noola mid tahay 20 square macna a square waxay noola mid tahay 20 square laga jaray b waxay noola mid tahay 12 square okay a square waxay noola sii mid tahay 20 square waxa waa 400 haddii aan saxsanahay laga jaray 12 square waxa 144 a square waxay noola mid tahay 400 haddii aan ka jarno 400 ka jar waa 300 44 marka la jar waxay noqonaysaa 256 maadaama a square inta waa inaan square ka bixinaa say ugu bixinaa laba dhinac waxaan ka bixinaa square root opposite maxaa ku ah square ka waa square root ka maana xid ka bixi marka xididka ay waxa isku baxay a square oo xid la geliyay waxay la mid tahay 256 oo aydan xid ku jirto marka xididka iyo waxa isku baxay square ka xididku waxay la mid tahay half square wax badan aan sharaxay square macnaha waxay la mid tahay half square half ila marka isku dhacna waa hal marka a waxay noola mid tahay 256 marka xididka laga bixiyo waxa waa 16 kor kama aqaan hore soo xisaabiyay marka sidina waa kor u yaqaana dileedmo insha Allah saas waxa muhiim ah sharciga inaan fahanno sanahay right angle triangle waxa loo adeegsadaa aragtida Pythagoras xagasha 90 ka dhinaca soo horjeeda waxa waa hypotenuse waxa waa xagasha ugu dheer waa c labada dhinac kale waa a b hadii la haydo insha Allah waxaan fiirinaynaa casharkii a b hadan ka shaqeynaa hadii la haydo marka waxaan leenahay b naga maqan a haysanaa insha Allah sharciga muxuu ahaay marka sina soo qorno fiicanta a square plus b square waxay la mid tahay c square sharciga waxaan rabaa in aad u fahansantahay waa iska sahlan yahay waa aragtida Pythagoras Allah waxa only loo adeegsan karaa right angle triangle markasta in xasuusanaato waa xagal kasta mu adeegsan kartid ilaa xagal 90 ma ahna oo saddex xagal ku leeyahay hadii ilaahay marka waxaan raadinaynaa b x tan waxay noola mid tahay b marka waxaan leenahay b square waxay noola mid tahay c square oo meesha joogto eeda ayaan wareejinaynaa marka inta calaamada bedelna insha Allah wala minus a square marka waxaan leenahay b square waxay noola mid tahay c square waxay noola tahay waa conton square minus 30 square b square waxay noola mid tahay conton square waxay la mid tahay 5 square oo 25 oo laba eber gadaal loogu daray insha Allah marka waxay noqonaysaa 2500 qalinka iga badbado sorry 2500 laga jaray 30 square waxay la mid tahay 900 marka b square waxay noola mid tahay 2500 marka la gooyo 900 waxay noola mid tahay 1600 okay laba dhinac waxaan ka bixinaynaa xid hadii ilaahay idmo xidaan gelinaynaa hadii ilaahay idmo marka waxaan leenahay b square oo ku jirta xididka
waxay la mid tahay 1600 oo aydan xidid ku jirto maadaama la dhinaca xididka la qeybay marka xididka iyo jibaarka waa isku baxan laba jibaaran oo isku baxan marka b waxay noo la mid tahay b waxay noo la mid tahay marka 1600 laga bixiyo xididku waxay noqonaysaa 40 insha Allah marka b waxay noo la mid tahay 40 marka waana konton waa ka yartaa b marka insha Allah jawaabta saasay noqonaysaa hadii la idmo waxaan ka jawaynaa su'aasheenii c hadii la idmo iyadana waa tan marka haddana waxaan raadinaynaa isku midku waa b aan raadin macna a aan raadin ama b aan raadinaa maadaama aad u dheertaan xagashan markaas waxaa muhiim ah inaan xasuusano xagashan right angle triangle ka oo 90 ka tan ka soo jeedo hypotenuse waa c inta c nool mid tahay labada marka a b limit karna oo qaadan karnaa problem ma leh marka hadda waxaan u qaadaynaa macnaha b again x nool mid tahay b square hadana b nool mid tahay aragtidu waxay leeyahay a square plus b square waxa nool mid tahay c square maadaama b aan haysan b aan raadinayna b square waxa nool mid tahay leenahay c square laga jaray aadan waa soo wareejinaa inta keena calaamadii bedel minus ay qaadanay marka hore plus ay hadda minus ay qaadanay insha Allah marka a square marka b square c square waxa nool mid tahay waa 65 cm waa 65 square oo square 65 square laga jaray 25 square b square waxay noo la mid tahay 65 square waxay noo la mid tahay 4225 25 square waxay noo la mid tahay waa 625 b square waxay noo la mid tahay hadii laga jaro macnaha 4225 hadii laga jaro 625 waxay noo soo harayso 3600 ayaa noo soo harayso hadii la idmo okay laba dhinac waxaan ka bixinaa marka xididkii sida caadiga ahayd marka waxaan leenahay b square oo xidid la geliyo waxay la mid tahay 3600 oo aydan xidid ku jirto marka xididka iyo square-ka waa isku baxayaan marka b waxay la mid tahay leenahay marka xididka been waxay la mid tahay 60 marka waxaan leenahay b waxay la mid tahay 60 insha Allah jawaabta saasay noqonaysaa hadii la idmo x waxay la mid tahay 60 taasoo ka yar macnaha hypotenuse waa xagasha dhankeeda kan ugu dheer waa baro markasto waxaan ku sii celinaynaa right angle triangle ayaa loo adeegsan karaa aragtida Pythagoras insha Allah hadii la idmo su'aasha ugu dambaysa oo ah c ayaan ka shaqeynaa insha Allah markaan waxaan leenahay waxaan raadinaynaa a aan raadinaynaa hadii la idmo maadaama aan raadinayno aragtidu waxay ahayd a square plus b square waxay la mid tahay c square insha Allah practice-kan badan aan sameeyno waxaan rajeynayaa inuu hadda ka bacday clear tahay right angle triangle dhinaciisa loo xisaabay inaan fahmi doono hadii la idmo marka waxaan sameyn doonaa maadaama raadinayna a square waxay noo la mid tahay c square oo laga jaray b square marada ku celinaya macnaha waxaa muhiim xagasha 9 soo horjeed ayaa c ah inta ayaa c ah labadan dhinac ay b kaarta u qaadan kartaa problem ma leh hadhood markaan xaglaha galno ayaan si fiican sii doona ka a ka b marka insha Allah marka hadda a square waxay la mid tahay c square waxay la mid tahay 51 square oo laga jaray 45 oo ah macnaha b square ka ah 45 square a square waxay la mid tahay 51 square marka la waa 2000 iyo waxa waaye iyo 61 2600 iyo laga jaray 45 square waxa waaye 2025 okay a square waxay la mid tahay
markii la kala jaro waxay noqonayaan 576 576 marka dhanka sax ka bixinayna root-kii hadii ilaahay idmo a square oo root la geliyay waxay la mid tahay 576 oo aydan root la geliyay marka root-ka iyo square-ka waa isku baxayaan a waxay la mid tahay 576 markii xidka laga bixiyo waxay noqonayaan 24 a waxay noo la mid tahay 24 dhankan waxay la mid tahay 24 insha Allah marka waxaa muhiim ah right angle triangle xagashan oo right angle ka dhinaca soo horjeeda waa hypotenuse dhaha hypotenuse ka amba c waa xagasha ugu dhinaca ugu dheer labadan kalena waxa waa a iyo b hadda maadaama aan xagal haysanin hadhow marka xagalaha galnaa aan si fiican fahmi doonaa a b laakiin hadda isku mid ah a b ka harta u qaadi kartaa wax barbaran mal insha Allah waxaan fahmi doonaa right angle triangle waxa loo adeegsadaa Pythagoras waxa loo kaliya loo adeegsan karaa right angle triangle hadii la idmo 10 soo doona hadii la idmo maanta exercise intaan ku soo meena hadii la idmo